boqorkii dirkow daa'imka kaadhigo qof wanaag ku daa'imay intuu dunida nool yahay munaasabadani ballaaran ayaa isugu jirtay soo dhaweyn iyo qada sharaf ay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland u sameeyeen boqorka guud ee beelaha dir boqor Cabdiqaadir Ismaaciil Yuusuf Tiiri oo fadhigiisu uu yahay magaalada Nairobi waxaana munaasabadaasi soo dhaweyntahay ka soo qayb galay ugaas Axmed Cali Maxamed Suldaan Cumar Maxamed Suldaan Faarax Suldaan Barre Xaaji Xuseen Caraale madax dhaqameed tiro badan iyo waliba marti sharaf waxaana halkaasi hadallo kala duwan oo soo dhaweyn ka soo jeediyay madax dhaqameed ay kamid ahaayeen ugaas Cali Axmed Maxamed Suldaan Cumar Maxamed Suldaan Faarax Suldaan Barre Xaaji Xuseen Cuqaal iyo madax dhaqameed kale oo tiro badan boqor Cabdiqaadir Ismaaciil Yuusuf oo ka yimid Nairobi yimid dalkiisii hooyo maanta soo caga dhigtay dal barwaaqa yimi oo gacmo furan ku soo dhaweynana anagoo walaaladii oo ka soo jeedna beesha arab weyne waa qada sharaf oo u qalmo boqorka dir yimid dalkiisii iyo dadkiisii iyo ehelkii in aynu iskugu nimaadno qada sharaftan waa waajib insaaniya wada dhalasho asxaabnimo dhan walba taagan weeye waa ku soo dhaweynaynaa ciddii inoo qabatay iyo qoladii qabatay iyo ciddii soo ajiibtayna waan ugu mahadnaqayaa xaflad ka qurux badan maan anagoo ka farxad badan waana soo dhaweynaynaa boqorka waxaanu leenahay soo dhawow sida ugaasku sheegayna boqorka dareeb waa ku kula shaqeynaynaa soo dhawow anigu waxa ka maqli jiruun milyan baan ka arki jiruun boqorka dir waa ilaahay maadi maanta haddaan fool isugu nibe waxaan leeyahay magacaasi sida uu soo noolayn lahayn fulweedaan qabanno boqorka direed laba akhris buu leeyahay akhriska koowaad boqorka direed kaba labaadna waa boqorka Soomaalida waxa la yiri Soomaalidu waa dir in la dhalatay yeena dhaleen waa boqorka Soomaalida waa boqorka dirka niila way si taaga waxaan ay boqorkii dir la soo marin annagu waa kula shaqeynaynaa hormuud baan ku nahay boqorka direed oo inoo yimi oo ka yimi Nairobi waxaanu doonaynaa inuu u soo galbino halka dirku u baladay jigjigaad ilaa ka dhigo in badan oo deemka halkan fadhida waan uga dhawahay taasaa keentay inaan ku soo dhaweeyo martiqaadkan oo ku soo dhaweynaynaa qalbi furan ku soo dhaweynaynaa waxay tilmaamaysaa martiqaadkeegani inaanu dadka uga dhawnay aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa boqor Cabdiqaadir Ismaaciil Yuusuf Tiiri ayaa soo dhaweyntaasi ka mahad celiyay waxaana uu dardaaran u jeediyay bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale hoggaankeeda oo ugu baaqay inay u midoobaan danahooda waxaa kale oo mahad celinayaa dhammaan dadkiinan qiimaha iyo quruxda iyo sharafta leh ee isugu yimi xafladan waxaan u mahad celinayaa oo mahad gaar ah aan u sii celinayaa beelweynta arab ee xafladan qiimaha badan la igu maamuustay ee uu odayga u yahay walaalkay Suldaan Cumar ma ahi siyaasi laakiin in yaro anigu aragtidaydiya intii aan howlahan ku dhex jiray ayaan idinka warramayaa iyo halka aagaadhay reer Soomaaliland dadka Soomaaliyeed inta qalbiga wanaagsan leh way ku faraxsan yihiin taasina aniga qiimo gaar ah ayay ii sii lahayd oo marka la yiraahdo Soomaaliland buu u dhashay fadhiga la iiga kacay shacab ahaan waxaan uga socdaataa inaa ku midowdaan oo mucaarad iyo muxaafid mid kaliya aan noqotaan haddii kale cadowgiina waa u jabaysaan itiraafkiina haddaa mid noqotaan waa helaysaan